ruux kastoo idin ka mid a ama qof walba oo naga mid a waxa uu shaqeeyaa dalkan mansabkuu doona ha ugu shaqeeyo meeshii uu doonana ha ka shaqeeyo dad badan oo idinka idin ka mid a oo annaga aan ka mid nahay waxaan kasoo shaqeynay hay-ado kale maantana waxa aan wada joognaa hay-addan ugu sarreysa dalka ee madaxtooyada qaranka Soomaaliyeed waxaan rabaa marka anigoo qadarinaya hadalladiina dareemaya duruufaha khaaska ah ku jirteen marka hore waxaan rabay oo kulankan ahmiyadiisu ay tahay inaan isbaranno labo in aan idin sheegno siyaasadda guud ee agaasika cusub iyo guud ahaan siyaasadda madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya oo ah madaxtooyada meeshii ugu sarreysay ee runtii barnaamijkaasi laga fulinayay xukuumadda federaalkana ay maaragtay barnaamijkaasi ay ku shaqeyn lahayd si guud aragtida ku beeskaraysan Soomaali heshiis ah dunida heshiis la ah waxa ay ka bilaabanaysaa meesha ugu hooseyso ilaa meesha ugu sarreysa ayaan rabnaa inay gaarto haddii Ilaahay yiraahdo tan kale ee shaqo ee naga dhaxaysa ee raba shaqaalaha madaxtooyada qaranka waxa qof waliba haddii uu isbedel dhaco waa la dareemi karaa qofka maskaxdiisa waxa ku soo dhacaya waa runtii ku faraxsanahay agaasimaha sida uga hadlay arrinta konseenka ay qabaan shaqaalaha marka waxaan rabaa inaan idin sheego annaga waxaa u nimaaday inaan shaqo waddankan ka qabanno haddii ay wax saxsanaayeen wax qaldanaayeen in la toosiyo wax walba ay wanaagsanaayeen in hore loo mariyo marka marnaba aragtideena ka mid ma aha in maaragtay dhaqan ku beesgaraysan ku xadgudub shakhsi ama koox ama group haba yaraatee ma jirto waxaa tihiin dhalinyaro shaqaale ah oo u shaqeeya dalkan u shaqaysiin shaqaalaha rayidka ana dee dhaqankooda ka mid maaha siyaasadda shaqaalaha ama rayid ahaado ama kulmeelgaar ha ahaado waxaa laga rabaa inuu shaqadiisa oo ka shaqeeyo ilaaliyana sharciga shaqaalaha siyaasadda dad kale ayaa ka shaqeeya dadka siyaasadda ka shaqeeya iyaga ayaa siyaasadda maaragtay haddii ay muxaafid ahaa lahayd markaas meesha ay joogaan haddii mucaarad ahaa lahayd siyaasiyiinta ay khusaysaa laakiin wax shaqaalaha la xiriira ma aha sidaas daraaddeed ma jirto fikir siyaasadeed ee shaqaalahan lagu beegsanayo ama maalin qof fikirkiisa uu dhiibtay maaragtay lagu dabagelayo annaga markii aan nimaado madaxtooyada qaranka hadafkeenu wuxuu yahay in shaqada madaxtooyadu ay toosto oo maaragtay hore ay u socoto qof walibana lagu qiimeeyo waxqabadkiisa waxaan rabaa marka inaan u sheego in arrinta welwelka iyo cabsida ay meeshaasi ka baxdo laakiin qofku uu ku talagalo waxa la isku qiimeynayo la isku qadarinayo la isku dalacsiinayo waxa ay tahay waa shaqada ruuxa uu qabsado sidaas daraaddeed waxaan rabaa in arrintaas maaragtay qof walba oo idin ka mid ah uu sidaas uu ku seexdo agaasima waaxidadana waxaa la rabaa in qof waliba uu ka shaqeeyo sidii uu laba jibaari lahaa shaqada ay qabanayaan isaga iyo shaqaalihiisana ay wada shaqeeyaan shaqada ayaa qofka lagu qiimeynayaa qofkii shaqaysa waayo procedureka la yaqaana la marsiinaa oo cabashooyinka oo maaragtay nidaamka sharciga uu qoraayo taas ayaa go-aan looga qaadanaa laakiin wax la yiraahdo nin kursi fadhiya ka kiciya qof kale keenso horta aragtidaas ma jirto marka waxaan rabaa mabda'aas in la ogaado annaga in qof la bedelo qof kale timaado waxay ka mid tahay dabeecadda maaragtay shaqo la yaab ma leh laakiin wax ku beeskaraysan booskan qof kale qof uu kici wax la yidhahdo ma jiraan marka annaga waxaan rabaa in aan shaqada ay noqoto mid spirit leh qofkana lagu qiimeeyo waxqabadkiisa iyo shaqadiisa in lagu qiimeeyo taas ayaa aniga rabnaa waxyaabihii anaga aan shalay aan ka dhininayna ama maaragtay dhacayay ama hore u soo maray inta liis la qoro boqolaala hal mar madaxtooyada laga saaro oo la yiraahdo dadkana la keenaa aragtidaas annaga runtii kuma beesgaraysna siyaasadeena marka ma jirto taas dalkan waxaan rabnaa annaga inuu hore u socdo sida aan dib u heshiisiinta meel walba uga wadno ayaan waxaan rabnaa dalkan inuu wuxuu u baahan yahay deganaansho siyaasadeed sida uu madaxweynuhu sheegay mar walba deganaashahana waxaan rabnaa mu'asasad kasta iyo heer kastoo dowladda ay leedahana in ay maaragta laga dareemo in deganaasha ay ka jirto si aan hore ugu socono maxaa yeelay haddii aan ku mashquulno wax shalay dhacay tana mustaqbalka ay naga mashquulinaysaa sidaas daraaddeed waxaan rabaa madaxtooyada iyo shaqaalaha madaxtooyada guud ahaan anigoo idin soo gudbinaya salaanta madaxweynaha iyo agaasinka guud in aad ku kalsoonaataan in aad u shaqaynaysaan qarankeena
in maaragtay fursado badanna aan isku heli doono madaxtooyadan waxaan rabnaa in ay maaragtay hore u socoto oo wixii aan kusoo korri karno oo cusub oo bilaya bilicdeeda muuqaal iyo maamul intaba inaan kusoo korrino si berrito qof waliba wuxuu jecel yahay inuu legacy ka tago haddii uu shaqo qabto ma jirto qof jecel inuu dib u laabto arrimaha la xiriira xuquuqda oo uu sheegay qaybaha ka mid a shaqaalaha inay dareemayaan waxaan ka shaqayn doonaa wixii aan ka qaban karno oo karaankeena inaan ka qabanno